السلام عليكم أصحابتي قيمة بدن كسو دوادا إسماعيل عبد الله جنال maanta waxaan idin haynaa warar xasaasi ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed isbedelada ciidanka iyo xiisado caalami ah oo saameyn ku leh amniga gobolka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa si rasmi u shaaciyay cafis uu fidinayay ciidamada federaalka iyo kuwa ku dhawaaqay badbaadada Koonfur Galbeed madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadaasi ay heli doonaan cafis haddii ay soo diiwaan muddo kooban gudaheeda haddii ay doortaan dagaal ay la kulmi doonaan ciqaab adag wuxuu si gaar ah u xusay dhacdadii Raas Kamboni isagoo fariin adag u diray kuwa diidan cafiska kana digay in wixii halkaas ka dhacay ay markale dhici karaan fariin ku socota dhalinyarada ciidanka ee Baydhabo loo dirayo sanad iyo bar ka hor waxaa la idin diray Kismaayo iyada oo la sheegay in madaxweyne Axmedow heshiis uga baxay madaxweyne Xasan Sheekh waxaa la idinku dhex tuuray furiin dagaal oo u dhaxaysa Al-Shabaab iyo ciidamo shisheeye iyo walaalihiin Soomaaliyeed muddo kadib siyaasiyiintu way isgacmo qaadeen booqashooyin ayaa la isdhaafsaday Xasan wuxuu ka degay Kismaayo Axmedna wuxuu yimid Muqdisho xiisadii way degtay laakiin khasaarihii dhaawacii iyo dhimashadii idinka ayaa qaaday miyaad maqasheen cid magdhow la siiyay ama ciidan ku soo jabay lagula xisaabtamay oo la ciqaabay ama xil looga qaaday wuxuu noqday dagaal laga macaashay oo ciddii ku hodantay haddaba ha noqon xawaalashito oo lagu dangaaro maanta isla taariikhdii ayaa soo noqotay markan waa Baydhabo iyo Koonfur Galbeed iyada oo sidii hore oo kale uu Xasan Sheekh ku andacoonayo in Laftagareen heshiis uga baxay mar kale ayaa la idinku dhex tuuray Al-Shabaab ciidan shisheeye iyo walaalihiin Soomaaliyeed siyaasaddu waa la isku khilaafaa waana laga heshiiyaa laakiin dagaalku waa mid reebaya raad joogto ah dhiig daatay iyo naf baxday midna lama soo celin karo ma aha in la idin adeegsado dagaalo siyaasadeed oo berri miiska wada hadalka lagu dhameyn doono ciidanka qaranka waajibkiinu waa difaaca dalka ilaalinta amniga iyo shacabka la dagaalanka argagixisada dagaalka maanta Baydhabo lagu qaadayo ma aha baahi qaran ee waa damac siyaasadeed iyo dan nin keli ah wato noloshiinuna ma aha wax raqiis lagu bixiyo mustaqbalkiinuna ma aha wax lagu gorgortamo dhiigiinuna ma aha wax dana siyaasadeed oo loo qubo iska diida amar kasta oo sharci darro ah ha gelinin dagaal aad og tahay in uu qalad yahay kana hor imaanaya damiirkiina iyo mas'uuliyadda dalkiina ugu dambeyntii dhiig Soomaaliyeed ha u daadinina siyaasadda biri laga heshiin doono oo gacan qaadashada ugu dambeyn dhiig Soomaaliyeed ha u daadinin siyaasadda biri laga heshiin doono oo gacan qaad booqasho iyo miis wada hadal ku dhamaan doono aayihiina wax aan faa'iido idinku jirin ha u waayinina cafiskan wuxuu u muuqdaa labada dhinac mid siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda iyo mid military oo cadaadis saaraya kooxaha ka soo horjeeda haddaba su'aasha taagana waxay tahay ma qaadan doonaan ciidamadaas cafiska mise xaaladdu waxay u gudbi doontaa dagaal toos ah afyaheenka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ka badan 200 oo diyaaradood oo nooca beerqatarka ah iyo kuwa la midka ah ay dul heebayaan deegaanada Koonfur Galbeed hadalkan wuxuu muujinayaa heerka sare ee diyaargarowga military iyo suurtagalnimada la adeegsan karo tiknoolajiyada casriga ah ee dagaalka sidoo kale wuxuu fariin u dirayaa kooxaha ka soo horjeeda maamulka